مسؤولينta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer oo ku qabtay xaflad ka turjumaysa maalinta xurnimada Soomaaliland ee 18 May ayaa lagu qabtay magaalada Burco. Xafladan oo ay ku qabteen xafiiskooda ku yaala magaalada Burco waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani, mas'uuliyiinta gobolka iyo marti sharaf bale. Xildhibaan Naasir Cali Shiro oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani iyo mas'uuliyiin kale oo halkaas ka hadlay ayaa waxa ay hambaliyo u direen shacbiga Soomaaliland. hambaliyo ku saabsan sanad guurada 23aad ayaan ku hambalyeynaya weynaha reer Soomaaliland. annaga xisbi ahaan waxa noola muuqataa siyaasadda xukuumadda maanta jirta inay 18 May ay ka dhigatay maalin iyadoo ay ugu tala gashay maalin olole ah oo ay ku muujinayso kaliya xisbiga kulmiye halkii ay ka ahayd maalin qarannimo ayaa waxa la xaaraantimeeyay oo muuqatay iminka in xataa loo diiday in meelihii khayriyaha ee ay ka hadli lahaayeen ee ummadda ay kala qayb galayeen farxadan in kaararkii ay kaga soo qayb galayeen laga xaaraantimeeyay haday yimaadaana aan mikrofoonka la siinayn. waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda runtii in arrinta ka waantoodo. waxaan qabnaa in Soomaaliland si nidaamka dimuqraadi u sii shaqeeyo waa in doorashooyinkiina waqtiga loogu tala galay waa in la qabtaa. xafladan aynu ku xusayno 23 guuradii ka soo wareegtay markaynu kala soo noqonay xornimadeena wadanka Soomaaliya oo aynu maanta ka joogno muddo 23 sano guud ahaan marka hore waxaan leeyahay shacab weynaha reer Soomaaliland hambaliyo. marka labaad waxaan leeyahay dhammaan xisbi weynaha wadani meel kasta uu joogo gudaha iyo dibadda waxaan leeyahay nagula ciida hambaliyo. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan joogo magaaladii lagaga dhawaaqay 18 May oo mid Ilaahay loogu mahadnaqo oo farxad weyn u ah dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland. taariikhdan aynu maanta taaganay aniga nasiibkaygu ugu wacan yahay maalintii ay dhalanaysay calanka la soo xishanayay anigu qoladii dabaaldegaysa maanta sidaa ugu dabaaldegayso ugu dabaaldegtaan aha. xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka hadlay xubno kamid ah mas'uuliyiinta xisbigaas iyo marti sharaf kale kuwaas oo dhamaantood ku dheeraaday ahmiyadda ay shacbiga Soomaaliland u leedahay maalinta xornimada ee 18 May. aadan cabdi ciidlahoon Cable TV Burco.